فناك الله شيء ما سيداسا مساسو يلا أفرا ديق أفرا قفك صديق أفرا أفكوها هذا قبلتان كلية وحنو بنان إنا الدعينو عندهنو ولا شيء إلهي يكو عافيو إلهي وحنا كاقد الغاضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان جنرال كيغا سرماني أصحابتك حران داود يال سو دوادا وصاحبكين محمد منير قلبي فران وهرين صاحبي على الانترنت فيديو هوري وقلين فضلا سبسكرايب سحارو علامة جدودة نيهوس كمبلال كان فرو هدي الجنرال كاكو عصب تحي هدي أصحابتي إذا كميت نهدنا سو دو أصحابتها كالو سي شرقري وحاوم لنا فيديو كان إنو أنفعي دونو صاحبي المانت waxaan rabaa inaan kaga hadlo videogan yar youtuber ah oo Jamaal Jecelo ay ugu qoran tahay oo qof daacad ah oo reaction ka soo bixiyay video isbuucan bilowgiisa dhaxwareegay baraha bulshada Soomaalida gaar ahaan YouTube-ka videogaas uu ka soo bixiyay falcelinta si wanaagsan oo ugu soo falceliyay xilligan markii la joogo Soomaalidu waxay tiraahdaa culummo caama waxay tiraahdaa zaman fidna lagu jira aakhir zaman waana run mar walba waxyaabo cajiib ah la arkaa fidnadan way sii badanaysaa ilaahan ka magan galnay yarkaan si wanaagsan ay ugu soo falceliyay marka hore fiidiyoodiisa way soo gaari jireen laakiin hadda si toos ah aan channelkiisa subscribe u dhahay muuqaalka la yaabay ay ku soo bandhigtay ayuu asagana ka soo falceliyay si wanaagsan ugu soo falceliyay dad badan ay jiraan oo youtubers Soomaali ah oo aniga laakiin aanan jeclaysan oo si yani aan wanaagsaneyn ugu soo falceliyay oo reaction ka soo sameeyay falcelinta waa reaction marka أنا waxaan rabaa inaan asaga videogiisa reaction ka soo bixiyo walow aan fasax keysan laakiin si wanaagsan inaan ugu soo falceliyaan rabaa waa baraarujin iyo amaan aan asaga u gudbinayo ma aha reaction oo asaga aan ku duraayo ma aan ceebeynayo wax ka sheegayo marka videogaas isla daawan doona soo dhawaada clipka ugu horeeyo wax kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دواني سلامي يا ولك جمال جعلو وما حد يعرفه ما أنت سان مدي لهن حدي أنا إذنك قبل لهن طبعا وحو اسويديي وام حي دقه افرو وحي تاهبا ما حنو قصب بايدا نو جيسته وما حي مقع مي اساس لو راشا حدي مقع هجاتا برمحو كوترا وحو ليه صاحبك جمال حقو كلفي maxaa runtiisa waaye maxaa magac ma asaas lagu raashaa laakiin waxba u qurxinaayo hadana clipka kale aan daawano waxa laga yaabaa in daroog la soo siiyay waxa laga yaabaa niman cadin inay ka duubayaan waayo ma jiro wiil Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed inta wax ugu duubo oo soo idid garay baraha bulshada oo dhigay laakiin wax waliba dhibkaas anaga keenay inta aadka ii soo jiidato waxay tahay daawada markuu leeyahay waxa laga yaabaa in daroog la soo siiyay ama xaalad kale ay ku jirto yani samiirkada joogin yani asagoo kala jeeda inuu ayadu cudur daarayo macnaha وعذر دارا مركا ووحنا سن لكن خوفك هادو مر قلت قالوا عذر دار كلام ماله وإنه أساس سيجوني عربي سو صلاته مركا لكن أساس سيدو وناكسن فيديو كده حتى مصوب بندقة سيدو شيء دونه مصوب بندقة يولي هاي سيدا شرفت هذا قبل أسوء إلى لنا يخوف وناكسن واي هالك يوتيوبرز كلا أركيس إنه يعني قبل ده ما خوف كستو مركز خلت كاس أو كلا قلا صوت ديجان أو صوت بونيان أي قدرت كلا سيتوسان يعني أي صفة فيها حمانتي كله عن داوانا كليب كله ما أنت أدون كاجي في راجدن صبي لكن موقال كذا هنا سوقاته أو هل كان صديو وحي وقتها ودد ميرحمو عجيب ويركان وحوار سهوية أي في سنة يسقم بالكوسار هدي بري عرفت وحي لذا ويلكي محالد نواسة أتكو جرتا لكن ديجان أي جيتي واي وحلا ديداي وحواي رون حتى هدي aan soo qaato leeyahay YouTube-ka channel-kii ku xiran ayaa laga yaabaa inay ugu qabsato walaashay amba walaalkay waa fiirsanaysaa lama gorba muuqaalkayga waa arkaysaa gabar walaasha xaalad noocaas ay ku sugan tahay waa u duceyleed waxaan ka codsanayaa inaad u duceyso oo kaliya tiraaho ilaahay wadada toosan ha ku soo hanuuniyo laakiin maanta haddii aan dhahno runtii wuxuu leeyahay hadda walaashay
ama walaalkay asxaabtiisa soo la hadlaayo kulay janalkiisa asxaab badan ku xiran youtuber oo caane waay marka wuxuu leeyahay xitaa walaashiina u duceeya ilaahay inuu soo hanuuniyo ilaahay u weydiiya oo wax wanaagsan kulay weli wuxuu ku fiicneed in ayada si gooni loogu tago waxaa jiro yar oo Facebook aan saaxiibo ku nahay oo habeenkii dhacdaas dhacday miya habeen ku xigay maalin waxay tahay ma xasuusto wuxuu soo geliyay in aanan gabadhaas la sii fadeexeenin oo la sii faafinin xumaanteeda oo loo duceeyo laga yaabo inay soo hanuunto anaga naga fiicnaato marka waa kana sawiradan ka soo qaaday soo arka وين usoo jawaabtay oo u jeedin sawiradan kale marka qofka hadii loo duceeyo oo wax loo sheego waxa laga yaabaa inuu soo tooso laakiin sida hadda youtuberska badana youtube ka dhex jooga dhalinyarada ama dadka youtuberska ah badana waxay sameeyaan qofkii hawada ka sii bixiyaan qaarkood way caayaan qaarkood waxay dhahaan ayadoo xumaantii wada horay u soco sida yarkan uu sheegay Jamaal Jecelow runtii waa sax qof fiican oo cunug yar dhalinyaro ah oo wax fahmayo waay laakiin maanta haddii aan dhahno deeq afra waxyaabo saas soo dhigtay waxay soo dhigtay wax loo adkaysan karan maahan waxay soo dhigtay wax loo adkaysan karan maahan indhaha ma fiirsan karaan dhagahna ma maqli karaan qalbigana wuu dhaawacayaa annagaa istoosi karno annagaa gacmo wada jir naga karno laakiinse haddee walaashaa biriga aad ku taageerto biri xaalad ka daran ayay soo samaynaysaa pointigan hadda uu ka hadlaayo runtii waa muhiim wuxuu leeyahay in aan yacni aan sii faafino oon sii buunbuunina ma aha waa inaan ka celinaa oon ka qabanaa haddii kale wuxuu leeyahay saa ujeedin way kasii daraysaa macnaha marka kulli aniga iyo dadka ila midka ay asagaba kulli inay warkeena maqlaysaan rajeynayna oo aysan mar kale micda sameynin walow sida iyo music waxa dhan culimada ay xaraan ka dhigeen laakiin asaga kulli sida uu ugu hadlay ani muhiimadu waxa waa videoga asaga qaabka ugu hadlay gabadhaas qaladkaas weyn ay gashay sida uu u baraarujinayo ayaan la yaabay macnaha waxay soo dhigtay wax loo adkaysan karan maahan macnaha oo sida wanaagsan ee maskaxda leh yarkan uu hadlay oo uu la hadlay asxaabtiisana uu la hadlay ayadana uu la hadlay oo yani si degan oo qaab wanaagsan uu la hadlay intaas la yaabay saas darteed reaction kan soo bixinaya istiri xaalad noocan hadii aad suubiso magac ayaa ku yeelanay magac kuma yeelan sumcad xumaa ku dhaal walaalkeeda fiirsanayo aabaheeda fiirsanayo hooyadeeda fiirsanayso wiilkeeda dhashaa fiirsanayo xaalad noocee ku sugnaa kariya waxaa laga yaabaa qofkaas inuu soo qaado laakiin qurbaha faa'iidana ma lahan dadoo ku dheelaa maahane hantii waxyaabo ma laga soo tabco waa runtiis wuxuu leeyahay sumcad xumo ayay ka qaadaysaa ma ahe wax oo wanaag ay ka helaysa ma leh wax oo yani bulshada ay magac kaga dhex yeelan kartana ma aha uu leeyahay runtiis waa kulay video aad u dheer yahay ma suurtagelayso video oo yarkan youtuberka Jamaal inaan si toos ah ugu isaga dhan aan reaction ka bixino video xun maaha ileenay waa video fiican waxaad ka daawan kartaa channelkiisa oo kan ah waana mahadsantihiin fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay daawada subscribe saaro waa ku mahadsan tahay daawashada videogan billahi tawfiiq fanaanka la sheega ma sidaasa fanaanka la sheega ma sidaasa ma saasuu u yaallaa maanta maxaa ka xum madaxiya soo baxsatay tinteeda soo baxsatay hore haddii la dhaha madaxa maxaa ka xum maxaa ka dembi badan madax banaan la keeno wax kaloo ka dembi badan ma jiro